cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ero gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo qaybo ka mid ah fideenka kula hadlayay goordhaweyd halkan oo hoygu ka degay magaalada Hargeysa waxa uu si adag u dhaliilay xukuumadda hogaamiye madaxweyne Biixi isagoo tiraba dhowr qodob sheegay in xiligan Soomaaliland xaaladda ay ku jirto ay tahay mid adag dadkii reer Soomaaliland waxa ka muuqda rajo xumaan baahsan iyo dayow aanay garanaynin meel lagu wado maanta cabashada iyo yuhun xumaanta waxa ka sinmay dadkii doortay Muuse iyo kuwii aan dooran waxa soo baxday oo dhalatay xukuumad ninka hagaya ay ku adag tahay ku dhaqanka sharciga ay ka go'an tahay burburinta nidaamka iyo shuruucda walaalayaal baadi socda ama sumadda hogaaminta Muuse 2 sano ee uu xilka hayay waxay noqotay sidan koow kala qaybinta iyo kala irdhaynta shacbiga reer Soomaaliland halkii uu ka midayn lahaa 2 ku xadgudubka iyo ku tumashada dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo waajibkiisa koowaad yahay ilaalintooda laguna dhaariyay waxa tusaale cad inoo ah in maanta golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland muddo xileedkoodu dhacay muddo kordhina aan loo samaynin sharcina aanay ku joogin dalka waxa ka mid ah 3 faragelinta nidaamka ganacsiga xorta ah ee uu jideeyay dastuur 4 xakamayn la'aanta sicir bararka halkaha goostay ee ragaadiyay dhammaan nolosha shacbiga reer Soomaaliland hoos u dhaca weyn iyo dabaca ku yimid amniga gudaha taasoo sababtay inay ka dilaacaan markii ugu horeysay jabhado gudaha Soomaaliland xisbiga wadani horu u cambaareeyay jabhadaha ka samaysmay dalka gudihiisa mar labaadna waan cambaarayna u adeegsiga 6 u adeegsiga awoodda qaranka dana shakhsi ah oo ay ka mid yihiin dhulboob iyo ganacsi gaar ah 7 caadaysiga ku tumashada xuquuqul insaanka caburinta xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan xadhigga joogtada ah ee madaxda axsaabta iyo muwaadiniinta kala duwan 8 baahsanaanta maamul xumada iyo musuqmaasuqa maamulkiisa ka jira inay luntay 9 kalsoonidii beesha caalamka ee dalkani ka sugayay ictiraafka 10 meed maxaa u dambeeyay iyo kii la sii sido waxaynu shalay dhammaanteen goobjoog u ahayn oo aynu indhaheenna ku arkaynay in hanaankii dimuqraadiyadda iyo rajada doorashada Soomaaliland hal cad lagu gowracay horteena iyo sida sayladda uga dhigeen golihii wakiilada Soomaaliland dhacdooyinkaas oo dhamme iyo qaar kale oo badan waxay tilmaan xun u yihiin hogaaminta Muuse Biixi ee saluuga salfudaydka iyo canaadka aan qiimaha ku fadhiyin isugu soo biyashootay isla markaana marag cad u yihiin tala xumada hoggaanka maanta jira haddii aynu sidaa ku sii soconno waxa jiritaanka Soomaaliland laga dooni doonaa qarannimadeeda meel fog ilaahayse kama dhigo gudoomiyaha ero waxa uu mar kale ku celiyay haba yaraateen xisbi ahaan aanay aqbali doonin isla markaana la shaqayneen xubnaha komishanka doorashooyinka cusub ee 6 ee maalintii shalay ahaa golaha wakiilada Soomaaliland cod aqlabiyada ku meel mariyeen ceebtii iyo foolxumadii shalay dhacday ee ahayd inqilaabkii golaha iyo afduubkii sharci ee la sheegtay in lagu ansixiyay xubnihii xeerka xaaraantinimeeyay ka mid noqoshadooda komishanka doorashooyinka qaranka waxaan mar labaad ummadda u xaqiijinayaa in xisbiga wadani aanu si aan ka noqosho lahayn u qaadacay la shaqaynta iyo ka mid noqoshada xubnaha la sheegay in la ansixiyay xisbiguna diyaar uma aha inuu xalaaleeyo
ama jideeyo waxaan sharciga dalka waafaqsanayn arrintan ama arrimo kale. gudoomiye ciro waxa uu fariin u diray shacbweynaha reer Somaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbigaasi. waxaan ummadda u sheegayaa kow mar haddii aanu muuse xeer iyo xaagaantoona dhowrayn oo dastuurku kow ka yahay, mar haddii uu fulin waayey heshiiskii uu la galay axsaabta qaranka ee beesha caalamku goobjoogga ka ahayd, oo aanu jirin dabar xidhayaaba, mar haddii aanu talo iyo tusaale midnaba ka dhegaysanayn hay-adihii dastuurku furay ama waajibiyey la tashigooda oo ay ka mid yihiin axsaabta qaranku, mar haddii uu ka baydhay habkii wada tashiga iyo dimuqraadiyadda ee qarankani ku dhisnaa, mar haddii uu dhaqan iyo yool ka dhigtay kala qaybinta iyo kala irraynta bulshada reer Somaliland ee midka ahayd, waxaanu muuse xasuusinaynaa inaanu dalkan xoog ku qabsan kuna haysan karin. haddii uu ku sii wado caragsiga iyo sharci jiidhka, waxaanu u sheegaynaa inaanaan taag iyo talo midna u waayin toosintiisa, ee aanu ku dhaqaaqi doonno tallaabo kasta oo qarankan lagu badbaadinayo. waxaan shacbiga Somaliland ee sharafta leh u soo jeedinayaa inay ilaashadaan midnimadooda, wadajirkooda iyo amnigooda, isla markaana diidaan kuna gacan saydhaan kala qaybinta iyo iska horkeenka shacbiga reer Somaliland. waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga waddani guda iyo dibadba. waxaanan farayaa inay u diyaargaroobaan halgan adag iyo hawl culus oo dalka lagaga badbaadinayo maamul xumada muuse biixi. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV-ga Somali Cable, Hargeysa.